السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواذا channelka عيب العود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. maanta waxaan idin wadaa qisooyin ku saabsan salawaadka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Marka qisooyinkan waa qisooyin horta wixii aan qiso aan soo waday qisooyinkana aad ii saameeyay. Marka qisooyinkan 1 ilaa 30 waxaan rabaa inaad dhageysataan si kaamil ah u dhageysataan si aad Ilaahay ma aragto ugu dhagtaan salawaadka aad badisaan iyo si aad u dareentaan Ilaahay wuxuu ka bedeli karo noloshaada. Dadkan buu u sameeyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala, anagana wuu noo sameyn karaa. marka daan laakiin aan daacad u noqono marka muuqaalkan maanta waa muuqaal oo wallahi special ah runtii dhageysta qisooyinka dhan qisooyinkan dadka noloshooda aad bay isu bedeshay laakiin intaan taas ka hadlin marka hore waxaan rabaa qisooyinkan markaad dhageysanaysaan idinka laftigiina badiya salawaadka haddaba inta dhageysanaysaan carabkiina badiya akhri maanta waxaan idin hayaa challenge yar oo ah inta aad dhageysanaysaan muuqaalkan salawaadka akhriya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad idinku dhageysanaysaa taas ma samayn kartaan okay inoo sameey insha Allah because maanta jimco waaye maadaama jimco ay tahay iyo waqti dhan idinka dhumin galabtiina saacadii ay ku jirto saacadaas inta between casr ilaa maghrib fariista hana ka kicina wixiina dhan hore ka dhameystirta laakiin saacadahaas fariista ducooyin sameeysta even salawaad kaliya akhriya ha sameeynta wax kale ducooyinka Ilaahay waa idin aqbalaya insha Allah waxaan rabay oo kaleeto inaan idin sheego isniinta waxaa inoo bilaabanaya 10kii fadliga badnaa oo dulxija ahaa 10kaas maalin waa 10 maalin oo cajaa'ib leh waa 10 maalmood ugu fadli badnaa sanadka oo dhan maalmahan waa maalmo aan la mid ahayn maalmaha kaleeta ee sanadka waa maalmo si gaar ah Ilaahay u doortay waa maalmo raxmadda iyo dambi dhaafka si weyn u soo dagayso waa maalmo camalka u yar Allah ka dhigay dhibic yar Allah ka dhigay oo Ilaahay kaaga dhigayo mid weyn amal fiican hal salawaad hal duco hal sadaqo xitaa hal ilin oo si dhab oo daacad ah indhaha uga soo daata waxay noqon karaan sabab noloshaada oo dhan isku bedelaysa maalmaha waxa ku jirta maalinta carafan waa naqana waxa dhaca waa maalin aad u weyn waa maalin ducada si gaar ah loo aqbalo waa maalin Allah adoomada uu ka xoreeyo naarta waxaa laga yaabaa inaad sanado badan wax alla ka baryeysay shaqo caafimaad guur ubad risqi deyn ka baxdid faraj hanuun maalintaas waa maalinta Ilaahay ku bedeli karo waxaas oo dhan waxaad jeceshaan ku siin karo marka maalintaas idin moogaanin hal hadda waxa inooga dhiman isniinta hadda soo socotay bilaabanaysa 10ka marka insha Allah waa week soo xigo qisooyin ayaan idin soo dhigayaa oo ku saabsan carafaad dadka waxay sameeyeen Ilaahay suux uga aqbalay marka maalinta Soomaaliya Ilaahay xaaladaada u bedeli karo subhanallah saa u jeceshaan uu kugu bedeli karo mararka qaar hal duco oo dhab ah ayaa kugu filan adoo dhadiya Allah oo qalbi daacad ah la timaado dad badan ayaa maalmahan oo dhan way soo marayaan laakiin ma garanayaan khayrkan ay ku dhex jiraan ay iska luminayaan waxa xitaa jirta dad oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu oofsaday oo sanadkan soo gaarin sida darteed maalmahan si dhab ah uga faa'iideyso waxaa laga yaabaa in carafo sanadkan ay noqoto maalintii Allah murugadaadii ka qaaday ducadaadii ka aqbalay noloshaadii dhan si dhab ah u bedelay qisooyin ku saabsan oo carafa iyo ducada sidii Allah dad uga aqbalay ayaan soo dhigi doonaa san jecelahay ii soo duceeyo in Ilaahay waqtiga ii barakeeyo idinkan idin barakeeyo insha Allah soo qisooyinkan aan bilaabana intaan qisooyinkan aan bilaabana waxaan jeclaan lahaa inay ii duceysaan muslimiinta dhan u duceysaan idinkan isku duceysaan kulligeen qof walba dhageysanaya aan isku soo duceeyna insha Allah إلهي إذن كان مرادك هدين سهلو عافمات الله إذن سيو وحاجة عشين الله إذن سيو إلهي نبض الله إذن سيو ميلو بقى جوكتان مسلمين تورنان صومالي تورنان تدك إهل كورنان أنا كان إيسو دعي إن شاء الله خير الله إذن سيو مركي قصوين كهدا عن بلاب قصة كوات قصوين كان وحان قصو قاتي الشيخ بكر إسماعيل مقال أسميه شالي ما هي دهرات شالي يسميه نجعلها مركا عن نو بلاب قصة كوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحان قالي ترتن aan ku akhrinayay salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam 100,000 oo jeer anigoo adeegsanaya saliga caadiga ah wasiiqada caadiga ah wallahi wax aan waligay jeclaa ayaa Allah ii fuliyay maalintii ugu horeysay markii aan 10,000 oo jeer ku celceliyay salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam anigoo adeegsanaya saliga fudud ayaa mid kamid riyooyinkaygii ugu waaweynaa rumoobeen inaan akhriyo salawaadka siiqada gaaban
wax la ila taliyay inaan sameeyo si aan u helo waxaan jeclaa qisooyinana aan soo wado way ka daran tahay mid kale waliba kuwa ugu dambeeya aad iyo aad ay u kala daran yihiin kulligood marka hal qiso ku dhaafin maanta weligii taa ma dhihin hadda hore u maqashin muuqaaladeedii hore laakiin tan ay idin dhaafin ani laftayga wallahi aad baan uga helay qisada labaad gabar ayaa waxay tiraahdaa waxaan ku riyoodo qof dhibaato weyn ku jira markaas ayaa waxaan ku iri badi salawaadka sallallahu alayhi wasallam si aad dhibaatada uga baxdo kadib ayaan weydiiyay fasirka riyada waxaa la ii sheegay fasirka riyada waa cad yahay xalka dhibaatooyinka oo dhan wuxuu ku jiraa badinta salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam okay qisada saddexaad gabar ayaa waxay tiraahday salawaadka aan akhriyay badan kadib ayaa waxa soo doontay qofkii aan jeclaa waxaan adeegsaday siiqada gaaban isku doonasneen aniga iyo qofkaasna caqabado iyo dib u dhac badan way jireen laakiin alxamdulillah hadda waan isqabnaa qofkaas muddo bil ah waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen badinta salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ilaahay noo fududeeyay waxaa kaloo idin bishaareynaya in saaxiibta iyaduna ay guursatay kadib akhrintii salliga ibraahimiyada gaar ahaan waqtiga saxarka oo fajirka ka hor saacadaha ka horeeya gabdhaha doonaya guurka ku dadaala salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam qisada afaraad waxaan lahaa ayeeyo 73 jir ah waxay qabtay buro maskaxda kaga taal mar walba way suuxi jirtay oo dhici jirtay dhaqaatiirtii oo dhan waxay ka cabsadeen inay qalaan da'dida darteed markaas ayaan habeenkii oo dhan waxaan ku wada mashquulnay familkii salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam qof walba wuxuu aqrinayay salliga ibraahimiga 1000 jeer habeenkaas oo dhan subaxdii ku xigtay baadan dib loo baarmaamadii ayeeyadii buradii wayba baaba'daba subxaanallah qofkan kaleeto oo qisada shanaad gabar ayaa waxay tiraahday waxaan si joogto ah ugu dhaganaa salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxyaabihii dhacay runtii waxay ahaayeen wax la yaabo wax kasta oo aan rajaynayay way rumoobeen xitaa haddii ay u ekaayeen waxaa macquul ahayn waxaan rabay inaan cumro aado waan aaday waxaan ku guulaystay waxbarashadeydii dad xun oo aan la socdo ilaahay wuu iga fogeeyey allah wuxuu ii sakhiray dad ii adeega oo i caawiya qaar walaalihii ka mid ah way ku guulaysteen waxyaalihii qaarkood ay rabeen maxaa yeelay waxaan u niyeystay salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam markaan akhrinayay niyadda iyagan ku hayay ilaahay wuxuu inuu u fududeeyo alxamdulillah allah wuxuu ii muujiyay xaqiiqooyin iyo qarsoonaa riyooyin badan oo bishaaro iyo faraj xambaarsan ayaan arki jiray sababta salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam darteed maalin ayaan ku riyooday xayawaan bahal ah oo weerar igu soo qaaday markaas ayaan cod maqlay oo leh allah wuxuu kugu badbaadiyay salawaadkii aad jimcaha badin jirtay mar kale safar ayaan ku jirnay dhibaato ayaa nagu dhacday laakiin dadkii nagu hareersanaa ayaa ilaahay noo soo qiray oo na caawiyay anigoo filanayn sababta salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam darteed xitaa ka hor safarka waxaan ku riyooday anigoo maamo kula talinaya inay badiso salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan sii waday allahumma salli wa sallim wa baarik ala nabiyina muhammad kadib allah ayaa arrimahayga dhan ii fududeeyay subxaanallah qofkan lixaad xilligii saxarka waa fajarka saacadaha ama daqiiqadaha ka horeeya xilligii saxarka ayaa si badan ugu celinayay salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam anigoo niyeysanaya xaajo gaar ah waxayna ahayd nasiiqada gaaban wallaahi isla maalintaas ayaan seexday markii aan soo kacayna waxaan arkay ducadii oo ilaahay iga aqbalay allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad qisada toddobaad gabar ayaa tiri wallaahi micnaha dhabta ah ee aqbalka ducada ma aanan fahmin ilaa aan ku dhaganaaday salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam ka hor taas ducooyin badan ayaan sameyn jiray laakiin mararka qaar bilo ay iga qaadan jirtay in ilaahay laga aqbalo hadii la aqbalo markii aan la qabsaday salliga ibraahimiyada iyo qiyaamul leylka nolosheedii si buuxda ayay isku bedeshay hadda ducadeeda ugu badnaan 2 ama 3 maalmood kaliya ayay iga qaadatay in ilaahay iga aqbalo subxaanallah qisada sideedaad waxyaabo markii hore ii muuqan jiray inay macquul ahayn ayaa ii fududaaday markii aan kordhiyay salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam arrimahaygii way sahlameen waxaan la socon jiray duruustaada iyo waxyaalaha aad soo bandhigto markaas waxaan ku qori jiray hoos comment anigoo dhahaya waxaan sugayaa mucjisooyinkan dadka kale ay ka sheekeynayaan aniga inteed inaan soo qori doono insha Allah hadda alxamdulillah waxaan arkay saameynta salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam dhinaca cuntadayda lacagtayda
iyo xitaa xaaladeeda nafsiga ah. waxaan dareemayay sidii balanbaalis duulaysa oo kale sababta raaxada iyo xasiloonida qalbigayga soo gashay darteed. allaahuma laka alxamdu walaka alshukru ya allah. okay, qisada 9aad. aniga iyo xaaskayga caruur ma dhali karin. markaas ayaan go'aansanay aniga iyo iyadaba inaan si joogta u akhrino saliga ibraahimiyada kadib salaada subax. maalin walba 100 jeer ayaan ku celin jirnay. bishii 3aad ilaahay wuxuu noo hibeeyey xaaskayga uur inay qaado. gabadhii aan dhalin waxaan u bixinay Mina. qisada oo 10aad. gabar ayaa tiri waxaan ku riyooday inaan ku jiray nolol wax kasta oo aan jecelahay oo helayay. riyadaas gudaheeda waxaan ku noolaa anigoo faraxsan sidii inay dhab tahay. gabadhan waxay ku riyoonaysaa riyo oo nolol iyadoo qaali ah oo maasha Allah ay ku dhex jirto ayay ku riyootay. riyadaas gudaheeda noloshaas iyo farxadaas waxay u malaysay dhab inay run tahay. kadib ayaa qof wuxuu ku yiri riyadaas iyadoo ku jirto wali haddii aad rabto in noloshan oo kale aad hesho adduunka badi saliga ibraahimiyada. riyada lagu dhahayaa saas. kadib waxaan bilaabay tirada inaan akhriyo ibraahimiyada. markaas riyadii ayaa la ii fasiray. waxaan la yiri hamigaaga iyo riyadaada waxay run ku imaan doonaan markaad badiso salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ilaahay wax buu ku siin doonaa. allahu akbar. qisada 11aad. waxaan la dhibanaa hurdo la'aan aad u xun. markii aan bilaabay inaan dhegeysto taladaadii kadibna aan go'aansaday inaan akhriyo 10,000 oo salawaad aan ku celceliyo siiqada gaaban waxaan seexday hurdo aan weligii hore u seexan. maskaxdeedii waxaa galay xasilooni aan la qiyaasi karin. waxaa taas ii sii dheereed dadkii ayaa si kadisa ii jeclaadeen oo ii adeegayo oo wax kasta ii qabanaya. ilaahay amarkiis qalbiyadoodii ilaahay wuxuu ku beeray jacayl aan sabab lahayn. waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen badinta salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam. qisada 12aad. risqi iyo caafimaad Allah ka yimid iyo gargaar ayaa iiga imanaya meelo aan ka filanayn iyo dad aanan aqoon. waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen badinta salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam siiqada gaaban. alle aan ku dhaartay risqigu wuxuu iga soo qubanayaa meelo aan ka filanayn sida roob camal ugu soo da'aya qofkan meelo uusan ka filanayn. subxaanallah. qisada 13aad. nin Sacuudiga jooga ayaa yiri waxaan diri jiray salawaad nabiga sallallahu alayhi wasallam siiqada gaaban. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ii furay albaabo waaweyn lacag aad u badan ilaa aan bishii 1 milyan oo riyaal ka badan sameyn jiray. laakiin markii nimcada iga badatay ayaa mashquulay. waana ka mashquulay inaan akhriyo salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaana ka tagay muddo bilooyin ah. kadib Allah faqri ayuu igu imtixaamay. markaas ayaan ku riyooday malag igu leh ku noqo salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam sababtoo ah ilaahay wuxuu kugu nimceeyay markii aad badin jirtay salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam. connection kama sameynayaan. waxaa laga yaabaa in adiga salawaadka aad sameynayso laakiin meelo badan ilaahay kugu furfuray. laakiin hadhowti wixii aad joojinaysaa salawaadka ayaa joojinaysaa dan hadhowti wixii baaba'aya oo kaa beerdaroobaya. micnaheedu marka maxaa waaye dadkii connection maysa sameynay. ilaahay wuxuu saan ugu sameeyey ugu miciinay because salawaadka ayay sameynayeen. subxaanallah. qisada 14aad. arrin farxad leh ayaan wadaa. waxaan gursaday isla qofkii aan qalbigayga ku sawirin jiray. wallaahi wuxuu lahaa dhammaan sifihii aan rabay oo dhan waxayna ku timid badinta saliga ibraahimiyada. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. qisada 15aad. uur ma qaadi karin maxaa yeelay meeshii ilmagaleenka ayaa dhib iga haystay. dhaqaatiir badan ayaan u tagay daawooyin badanna waan isku dayay laakiin waxba ima tarin. markaas ayaan go'aansaday inaan salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam akhriyo waliba siiqada gaaban. waxaa maalin kasta akhrin jiray 100,000 oo jeer. alxamdulillah anigoo wax aan daawo aan qaadan ayaan uur yeeshay. inkastoo dhaqaatiirta ay yiraahdeen arrintan macquul ma aha waaba impossible. waxa kaliya ee aan sameeyay wuxuu ahaa badinta salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam. ilaahayna wuu u furfuray wax walbaba. qisada 16aad. marka qisooyinkan aad dhegeysataan maxaa dareentaan because adduunka ilaahay wax kasto uu ku furfurayaa. qof maanta dhegeysanaya oo dhibaato ku jira haddii aanan akhrinaynin salawaadka ilaahay u go. wallaahi haddii xataa ilaahay uusan kaa saarin dhibaatadan waxaad helaysaa xasilooni iyo nimco iyo maskax ku degan baa helaysaa. ilaahayna waa ku xiran tahay connectionka ilaahay la leedahay xiriirka ilaahay la leedahay adkay. marka qisooyinkan yaana noqon dad iska dhageysta hadhowtina aan meeshii aga tagno. bal ku dhaqan markasta hadaa dhibaato aad ku jirtid wadankeeni annaga iyo Soomaalideeni ummadeeni haddaan markasto aan
كفر أذيق لهن الصلوات يو ذكر إلهي سبحانه وتعالى وحنا قهلا بالله مجر لهن نقول أبنو قصة اللي حيطبنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ بكر waxaan go'aansaday inaan sameeyo sidii aan dadka kula talin jirtay halkii aan si toos ah ducada u sameyn lahaa waxaan bilaabay inaan badiyo salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam anigoo niyeysanaya xaajada aan rabo wallahi arrintan waxaan ku tijaabiyay waxyaabo badan oo noloshayda ah mana jirin hal mar oo aan ku fashilmay mar walba waxaan helaya waxaan niyeysto mar kasta oo aan niyeysto xaajo gaar ah anigoo salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam badinaya Allah ayaa ii fududeyn jiray arrintaas okay qofka 17 assalaamu calaykum waxaan marag ka ahay sheekh bakar inaysan jirin dhibaato weyn ama masiibo adag oo aan ku dhacay kadibna aan badiyay salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam wax badan ilaa uu Allah iga furfuray si aanan weligay u qiyaasi karin wallahi markasta oo aan dareemo in albaabada oo dhan iga xirmeen kadibna aan ku dhago salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu ii furi jiray meel walba meel aan ka filanayn ayuu iga furi jiray mararka qaar waan fariisan jiray meel anigoo quustay oo aan garanayn meel aan wax ka bilaabo kadib markii aan badiyay salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam arrimihii midba waa si tartiib u furfurmaya ilaahay ayaa ii maciinaya mar walbaba si aan maskaxdayda waliba aan fahmi karin ayuu ilaahay igu xalinaya arrimahayga dhan Allahu akbar qofka 18aad assalaamu calaykum waxaan ku keenayaa bishaaro weyn Allah ayaa iga caafiyay kansarka sababta salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam darteed Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad bilowgii waxaan dareemayay cabsi badan xanuunka iyo walbahaarka iyo fikirka aad ayuu igu badnaa laakiin waxaan ku dhaganaa salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan sii waday akhrinteeda maalin walbaba kadib Allah ayaa isiiyay caafimaad subhanallah qofka 19aad alxamdulillah ninkaygii ayaa ii soo noqday kadib furiin iyo dhibaatooyin aad u waaweyn dadkii oo dhan waxay moodayeen inay suuragal ahayn inaan dib isu fahano ama dib isugu laabano arrintani aad bay u cakarneed dadkii igu hareersanaa weliga isma dhahayn waa isku soo laaban karaan laakiin sababta badinta salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam darteed ilaahay qalbiyadeena dib ayuu isugu soo celiyay wax aan macquul ahayn ayaa wuxuu noqday wax sahlan ilaahay dartiis Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qofka 20aad wallahi sheekh bakar waxaan ku jiray imtixaan aad u weyn waxaan dareemayay culays aad u badan iyo walbahaar noloshii baa igu adkaatay kadib habeen ayaan ku riyooday sheekh dhar cad xiran oo idhahaya wuxuuna igu yiri badi salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam muddo bil ah Allah faraj ayuu ku furi doonaa markii aan hurdada ka soo kacay si dhab ah ayaan hadalkaas qalbigayga u qaatay waxaan bilaabay in maalin kasta ku dhigo salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam bil dhan ayaan sii waday wallahi markii bishaas dhamaatay si sax ah Allah ayaa iga furfuray dhibaatadii oo dhan musiibadii igu cusleed waan ka baxay alxamdulillah rabbil caalamiin qofka 21aad waxaan shaqo la'aan ahaa in ka badan 9 sano waa 9 sano oo dhan ayaan shaqo la'aan ahaa murugada culayska iyo niyad jabka aad ayay ii daalisay markasto aan shaqo codsado waan ku fashilmi jiray laakiin markii aan bilaabay inaan ku far adeego salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam arrimihii way isbedeleen Allah wuxuu i siiyay shaqadii exactly aan ku riyoon jiray oo aan jeclaa shaqo raaxo leh shaqo sharaf leh iyo mushahar aad u sareeya waxaas oo dhan waxay ku yimaadeen badinta salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa ilaahay igu nimceeyay 22 waxaan arkay arrin aad iga yaabisay kadib markaan badiyay salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam dadkii i necbaa dadkii i xasdi jiray dadkii aragayga aan la tusi karin ayaa si kadisa waxay u bilaabeen inay caawiyaan oo wax ii qabtaan oo ii adeegaan Allah ayaa qalbiyoodii ku abuuray aqbalid iyo jacayl aan sharxi karin maanta sabab ay igu jeclaadeen ma garanayn waan dad awal i arki karin Allah ayaa qalbiyoodii ku abuuray aqbalid iyo jacayl aan sharxi karin waxaas oo dhan waxay ku yimaadeen badinta salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam qisada 23aad xilligii koronada ayaa shaqo la'aan ahaa Allah ayaan bari jiray maalin walbaba maalin carafo ah oo maalinta carafo soo socota yaa camo maalin carafo ah ayaan Allah ka bariyay inuu ii sahlo shaqo ku saabsan xirfadeyda inaan xirfadeyda ku shaqeysan karo ayaan rabay kadib sanad ayaan waxaan ku shaqeynayay Qaahira anigoo ka shaqeynaya isla xirfadeydii maalin ayaa saaxiib aan hore u aqoon jiray soo wacay wuxuu ii sheegay inuu jiro qandaraas shaqo oo dibadda ah
oo wax aan lacag ah layga baahnayn inaan bixiyo. Qandaraaskaas waxaa loo soo dhiibay nin iyaga matalayay, laakiin ninkii waday ayaa wuxuu qandaraaskii u dhumiyeyba, meel uu dhigo iyuu aqoon waayey. 20 maalmood ayaan raadinaynay oo Masar dhan ka raadinaynay, waan la waayey. kadib ayaan arkay qoraal ku saabsan salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo fadligiisa. waxaan go'aansaday inaan badiyo saliga Ibraahimiga 2 saacadood gudahood. waa hadda 2 saac kaliya gudahood ninkii dokumentiyaashii waday wuu helay, qandaraaskii wuu helay, waan la soo wacay. alxamdulilah, ilaahay wuxuu ninkan u siiyey risq shaqadaas oo mushaharka badan ayuu hadda helay. qofka 24 waxaan hadda kula hadlayaa anigoo wixii aan baahida u weynaa u qabay nolosheedii anoo helay. muddo ka badan 2 sano ayaan ilaahay wax gaar ah ka baryay. waa 2 sano ayaan duco sameynay, laakiin lagama aqbalin oo waqtigeyga ma ahaynba. kadib ayaan go'aansaday inaan akhriyo salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam. meeshii ducada aan akhrin lahaa ayaan waxaan ku bedelay saliga, ayaan ku bedelay salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam. 5 bilood kadib hamigeygii run buu noqday. wixii aan rabay 2 sano dhan ayaa ilaahay wixii run maanta ii keenay. faahfaahin walba sidii aan doonayay ayay noqotay, si exactly san wax u rabay ayay u dhaceen. ilaahay igu sameeyey. waxaan akhriyay اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إبراهيم يدو أخرية qof kaanit 25 bilowgaygu wuxuu ahaa qof badiya saliga Ibraahimiyada. run ahaantii si joogto ah uma tukan jirin salaada caadiga uma tukan jirin, laakiin saliga Ibraahimiga wuxuu noqday sabab Allah igu kaalmeeyay inaan toobad dhab ah keeno. wuxuu ii noqday sabab aan dambiyada uga tago iyo sabab aan salaadeyda u joogteeyo. kadib markii aan si fiican ugu dhagay, nolosheedii si buuxda ayay isku bedeshay. waxbarashadeedii, shaqadeedii, risqigeygii, lacagta, ilaa xataa guurkeygii. waxaan hadda saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waday muddo 4 sano. saliga Ibraahimiyada waday 4 sano ayay wadaa. dhammaan ducooyinkeygii oo dhan, riyooyinkeygii oo dhan, wax kasta aan rabay oo dhan ilaahay run buu ka dhigay oo waa ii sameeyey sababta salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam. qofka 26 waxaan ku dhacay musiibo aad u weyn. ma ahayn dhibaato yar, waxay ahayd arrin igu cuslayd oo aan dareemayay inaan ka fakan karin. markaas ayaan go'aansaday inaan akhriyo salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam. kadib ayaan ku riyooday qof aanan garanayn. qofkaas wuxuu igu yiri ku celceli saliga Ibraahimiyada, faraj ayaa ku imanaya. markaas ayaan hurdada ka soo kacay, isla markiiba waxaan bilaabay inaan ku celceliyo saliga Ibraahimiga. carabkayga kama joojin jirin. subxaanallah, Allah subxaanahu wa ta'ala isla maalintaas ayuu ii furfuray oo ii fududeeyay dhibaatadii. wax kasta isla maalintaas ayaan helay, alxamdulilah. qofka 27 waxaan si joogto ah ugu dhaganaa saliga Ibraahimiga muddo 7 ah, muddo 1 week ah ayaan ku dhaganaa. wallaahi waxaan indhahayga ku arkay ducadeedii oo la iga aqbalay isla markiiba, maadaama aan addicted ku noqday akhrinta Ibraahimiyada oo carabkayga la qabsaday salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxaan akhrin jiray subax walba 1000 jeer ayaan akhrin jiray, habeen walbana 1000 jeer oo Ibraahimiyada akhrin jiray. 7 maalmood ayaan sidaas u waday. kadib ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa iga aqbalay xaajadii aan doonayay. ducadii ii muuqanaysay wax adag oo fog ayaa waxay noqotay wax xaqiiqo ah, dhab ah oo ilaahay ii furfuray oo ii sameeyey, alxamdulilah. qofkan kale oo 28 wuxuu dhahay waxaan aad ugu baahnaa inaan wiilkayga daawo u soo iibsado, laakiin ma aanan haysan xitaa 1 diinaar. markaas ayaan go'aansaday inaan bilaabo salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam anigoo niyeysanaya inuu ilaahay ii soo diro lacag daawada, sababtoo ah wax lacag maanan haysan. kadib markii aan bilaabay saliga Ibraahimiga, saaxiibtay ayaa si kadib ii soo wacday. waxay igu tiri waxaad igu leedahay dayd soo ma ogid. kadib waxay i siisay lacag aad u badan. waxaan wiilkayga ugu soo iibiyay daawadii iyo dhar. waxayna noqotay ducadii ugu degdegta badnayd ee noloshida oo la aqbalo oo aan soo maro. qofka 29 waxaan hadda ku noolahay mid ka mid ah riyooyinkaygii ugu waaweynaa ee noloshayda, sababta salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam darteed oo ilaahay igu siiyey. waxaan baahi weyn u qabay inaan safro, wadan gaar u safro. waxaan kaloo doonayay shaqo gaar ah iyo mushahar gaar ah oo aan qalbigayga ku haystay muddo dheer. muddo badan waxay ila ahayd waxaan macquul ahayn, laakiin waxaan waday saliga Ibraahimiga oo aan sii badiyay. kadib Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa albaabadii oo dhan ii furay si aan weligay filanayn. hadda waxaan ku noolahay isla noloshii aan ku riyoon jiray oo aan jeclaa. wadankii aan rabay ayaan joogaa, shaqadii aan rabay ayaan ka shaqeeyaa, mushaharkii aan ku hami weynaan waan helay, alxamdulilah. ilaahay dhammaantood wuu i siiyey.
sheekh bakara wuxuu yiri wuxuu xitaa ii soo diray ninkan sawiro laakiin ma doonayo inaan idin tuso sababtoo ah fasax kamaanan qaadan qofka ugu dambeeya oo soddonaad Allah musta'aan mid kamid ah walaalahan Sacuudiga jooga ayaa yiri wallaahi sheekh bakar nolosheedii aad bay u adkayd dhibaatooyin badan ayaan qabay markasta oo aan shaqo codsado waa la ii diidi jiray wax walbaba waxay ahaayeen albaabo iga xiran waxaan bilaabay inaan quusto kadib ayaan go'aansaday inaan bilaabo saliga ibraahimiga oo aan badiyo salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas Allah ayaa nolosheedii si buuxda u bedelay Allah wuxuu ii furay albaabo risqi ah oo aan weligay filanayn hadda lacagta Allah i siiyay darteed run ahaantii mararka qaar ma garanayo waxaan ku sameeyay xataa waxaan oo dhan waa hal tusaale yar oo ka mid ah waxyaabihii nolosheeda iska bedelay sababta oo ah salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo Ilaahay wax kasta igu siiyay اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قصوين انت سيكو اكتهي قصوين كان ان روحنو ان دغيسنو ان قدقنو ان سمينو نبي عليه الصلاه والسلام تو دحي ducooyinkaaga oo dhan waxaad ku bedeli kartaa salawaadka marka salawaadkana aan badino wixii qof dhib ku jira maanta dhibkaas Ilaahay suu kaaga saaro salawaadka badi Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad khayr baan soo ognahay intaas ay nagu eg tahay wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh